بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland guud iyo dibadba. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. salaanta ka bacdi waxaan maanta halkan isugu nimid annagoo ah guddiga fulinta iyo golaha dhexe inaanu cambaarin xisbiga wadani laantiisa dalka Holland inaanu cambaarayno saldhigga military ee Imaaraadka Carabta laga xaraashay ayaanu cambaaraynaa cod dheer baan ku cambaaraynaa. waxa kale oo halkan cambaarayn uga diraynaa falalkii foosha xumaa ee ka dhacay golaha guurtida. waxaan cod dheer ku taageeraynaa oo simbiyo miisaan leh aan ku taageersanahay go'aanka uu soo saaray xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wadani iyo musharaxa madaxweynaha gudoomiye Cirro go'aanka uu soo saarayna si aad iyo aad ugu taageersanahay. إن شاء الله وحالياله وحي واجبين نلو قدبان وفين دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan anagoo ah guddiga fulinta golaha dhexe xisbiga wadani Holland halkan waxaanu ka diraynaa cambaarayn ku socota saldhigga military ee berbere laga samaynayo ee shakhsiyaad gaar ah oo shilimaan eeganaya ay soo hageen. Somaliland itaal uma hayso colaad. Somaliland waxay ku caanamashay nabad. waxaynu nahay wadan aan la aqoonsanayn. marka waxaan qabnaa annagu fikir ah inaan saldhig military laga samayn karin meesha waayo waxayna soo eegan doona quwado aad u xoog badan oo ay ka mid yihiin Iran iyo nimanka Xuutiyiinta ah oo gantaalo aad u riddo dheerna haysta. marka ma karayaan dadku dhibaato ka soo gaadha saldhig military oo meesha laga sameeyo waayo dadku waxa kaliya ay maanta haystaan waxa weeye waa nabadgelyo dhaqaale xumo haysa sixir barar baa haya abaara haya marka dadku itaal uma hayaan in saldhig military meesha la dulkeeno. marka waxaan leenahay dawladuna aqoon darrada haysa ha iska deyso. ninba wasiirka madaxtooyada lagu magacaabo Maxamuud Xaashi ayaa sheegay inay cadani inoo jirto 500 kilomitir gantaalaha ridada dheerna waxay marayaan 6000 kilomitir. marka aqoon darradooda ayay tilmaamaysaa in aanay waxanba ogeynba wuxuu noqon doono ee ay eeganayaan shilimaan yar. marka dadka iyo dalka arintaasi ummadan ahaa dadkana waxaanu leenahay ka kaca ka banaanbaxa waxaad ka sugtaan yeena jirin. marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliland arintaas gobol wal oo ay joogtaba ha ka banaanbaxdo ha kana diyaar galowdo. aad iyo aad baan u cambaaraynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمالكم waxaan ka salaamayaa dhammaan reer Soomaaliland baan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa xisbiga wadani waxaan salaamayaa madaxweynaha mustaqbalka madaxweyne Cabdiraxmaan ma sha Allah iyo hogaamiyaasha xisbiga waan salaamayaa. waxa weeyaan halkan maanta waxaan isugu nimidnay oo shirkan jaraa'id oo u qabanay ciidamada beeska laga siinayo gobolka Saaxil. gobolka Saaxil uu ka weyn yahay wax jeeb lagu rito wax rag u khaasi ay shilimo ku bedeshaan. waxa weeyaan gobolada Soomaaliland oo dhan dhiig baa loo soo daadiyay 25 sano kadib nabadgelyada ay ku waareen hadii ciidamo shisheeye la keeno. annagu ciidamada shisheeye aanu ka gudoomiye garab ahaan anoo gudoomiye garabka haweenka laanta Holland waxaan leeyahay annagu ka dumar ahaan waxa weeyaan arinta ayada aad iyo aad baan uga soo horjeednaa waayo rag shisheeye ah rag ajnabiya oo askara marka la soo dejiyo de annaga taariikh xumay naga tagayaan. marka waxa weeyaan annagu raali kama nihin beeska la siiyay. waxaan halka ka cambaaraynayaa go'aankii gacan ku rumiska ah ee golaha baarlamaanka ka dhacayna kaan waan cambaaraynayaa. waxaan ka soo dhaweynayaa banaan bixi sida sharafta lahaa uga dhacay dalka UK gaar ahaan magaalada London ee lagu banaan baxay inaana raali ka ahayn. halka waxaad ka arkaysaa reer Soomaaliland oo dhan cid ka raali inayna halkan jirin. dhammaan waxaan leeyahay wadani meel kastuu joogo iyo dhammaan reer Soomaaliland ba fadhiga waa in laga kaca fadhiinooma yaalo. maanta ayaynu gadanahay maanta aynu gacan shisheeye galaynaa waayo waxa weeyaan inaga aqoonsi ma haysano. aqoonsi haddaan haysano dee aqoonsiga dawlad aqoonsi loo aqoonsan yahay ayaa wax kala saxeexdaa.
marka inagu dawladana aqoonsi marka hore bay noo ogolayn sin base military u siin karnaa waa maya arrintaas waa arrin Soomaaliya ka timiday ta Soomaaliya ka timidayna anaga noo cuntami mayso mana rabno doonina mayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliland waxaan ka salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaan ka cambaareynaa halkan saldhigga maxayda military ee la leeyahay magaranaysa la xaraashay ayaan ka cambaareynaa waayo saldhig military faa'iido ma leh moogti waa colaad u soo jiida mooyaane wadanka faa'iido u leeyahay ma jirto intaasina koox yar oo sururtay baa magaranaysa dhaqaale ku doonaya marka waxa la ummadda Soomaaliland maanta ayay chance haystaan ha ka maxayday mudaharaadaan ha ka dhidhiyaan marka intaasaan ku soo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قام مقعي بيه نجيب اسمان محمد عفاياك حسبي وثاني لانتي سولن عياري هانكي نجيب اسمان محمد دايري لو يقاني وحمانتا أنو هالكان يسووني من ذي إن أنو شيف شرايط قبرنو كاسو أنو كعبارين إنو فالك وحشيني ماذا أي كوك عذي مانتا حكومة dalka haysata isla markaana uu ka dambeeyay xisbiga kulmiye oo ah in ay xaraasheen hooygii kaliyaha ee ay lahayd Somaliland iyo hooyadii berbera oo ay ka bixiyeen saldhig military ay contract la soo qaateen dawladda shisheeyo United Arab Emirates la yiraahdo waxaan u sheegayaa in aanay wax haba yaraatee suurtageli karaa aanay jirin isla markaana aanan raali ka ahayn haddaanu nahay xisbiga wadani iyo annagu ku hadlayna afkii shicbiga wakiishay ee reer Somaliland waxa kaloonu ku taageeraynaa dadweynihii reer Somaliland ee mugye miisaanka lahaa ee safaaradda Imaaraadka ee wadanka Ingiriiska mudaharaadka ka sameeyay kaana waanu la garab taaganahay waxaanu isku dayaynaa mar walba in aanu taageerno muwaadiniinta ka soo baxda golaha dhexe ee xisbiga wadani land isla markaa waxaanu u diraynaa dadweynaha dhammaan in aan loo kala hadhin safaaradaha wadamada ay ku kala baahsan yihiin United Arab Emirates mid walba in la isku dayo in lagu hor mudaharaado loona muujiyo mowqifka aanu ka taaganahay saldhig military oo laga abuuro magaalada berbera. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومقعي ومحمد علديرة وقدوميها قولها دحي إعلانته هولن حزب وطني وحان مانتا هالكن أنو شركة شرائدكو قواني إن أنو كهذا الله سلكي لقى بحيه مقالة بربا وحبا هذا الخود ديران مايو انتي لورا الهوا ليري وحان تاقر سنة يكو عمدا كصوبحي حزب وطني يتاقر ياشيس iyo shacabka reer Soomaaliland sida ay u badan yihiin ay ku diideen taasaan u taageersanahay waxaanu leenahay qaar baa wasiirada arkay maanta ku hadlayay oo lahaa wixii aanu idin sheegaynay weeyaan waa kaas go'aankii farmaajo raacsan war anaga Soomaaliya waxba naga gelin Soomaaliland baa leedahay shacabka Soomaaliland wax ma diidi karo marka arrin la soo qaado waxay ku leeyihiin Soomaaliya maxay soo keenay Soomaaliya waddan kale weeyaan Soomaaliya oo dhexdeeda laga hadlaya in la isku khaldo maaha haddii ciidi soo saxeexday idinka Soomaaliya ka soo saxeexay baanu leenahay laakiin anagu ma ogolin saldhigga military ee laga bixiyay dalka waanu ka soo horjeednaa waana cambaareynaa go'aanka xisbiga madaxdiisa iyo go'aanka shacabka Soomaaliland boqolkiiba 80 ay ku diideen baan ku diidanahay taasaan maanta halkan isugu nimi waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dadka Soomaaliland ee diidan go'aanka foosha xun ee la gaaray ayaan ku taageersanahay waana ku hambalyeynaa waxaan leenahay halka ka sii wada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وياسين عبد الله عبدي وحنا قدوميها قرب كل رجال لانت هولن وحنا هلين كعمبارين يا قوانكي قاتين كلها بارلمانكو إياها قوان عن صحهين الوب بحيي بيسك الصينية إماراتك المجالات بربرة وحلاها هاي بيسكاسي ضنوا معها ضلك يضدك وحنا كلهم هلين كتاجرية go'aankii ka soo baxay xisbiga wadani ee ahaa inaan diidanahay in base laga siiyo ciidamo shisheeye waxaan kaloo hambalyeynaya mudaharaad ka dhacay London waxaan leeyahay hawl fiican baad qabateen codkiina baad muujiseen waana loo baahnaa in codka shacabka la maqlo ay maqlaan dadka saldhigga la siinaya laftigooda aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.